السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن حكسد هلكان إن كلا هدلاينا وحكسد حمان ديدو في الشيال فضلنا ديات كعصبتها جنرال كسبسكرايب لايك أند شير كومنتيجن وحنا وسو قد بكرتا وحلالي وح فكرة إنه هيسو وحكلا إنه وسو ذا كرتا وحنا كو خلدنا سيانس كبسحن إن شاء الله waxaan ku guda jirnay taxana inoo ah barnaamijkeena la magac baxay badbaadada qoyska gaar ahaan mowduucan ku guda jirnaa waxa uu ahaa hooyooyinka hooyo amaanteeda iyo dadaalkeeda iyo maaragtay waxay qabato ma ahan wax lagu soo koobi karo muuqaal iyo wax la mid ah kaliya waxaanu maaragtay aan rawadnaa baraarujin iyo isxasuusin kaalinta hooyadii kaga jirta bulshada dhexdeeda waxaan rabaa maanta inaan idin wadaago barnaamijka uu ciwaankiisu u yahay hooyadu waa dhakhtarad hooyo kasta waa dhakhtarad waxayna dadaal dheer u gashaa had iyo jeer sidii ay ku ogaan lahayd cunugeeda xanuunka hayo marka uu ooyaya isagoon hadlayna oo garasho lahayn oo lahayn meeshaas laga haya misana aysan wax maaragtay calaamada aysan ka muuqan lagu garan karo xanuunkiisa ayay hooyadu waxay u doristaa in badan inay ogaato xanuunka hayo waxayna awood u leedahay inta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu karsiyo in maaragtay ay ogaato xanuunka cunugeeda hayo deetana maaragtay ay ku dadaasho sidii ma garanaysay ay ku daweyn lahayd ayadoon la kaashan dhakhtar iyo maaragtay wax ka baxsan ayada hooyo kasta waxay leedahay xarun caafimaad ee u gaar ah oo ayadoo ay ka tahay dhakhtarad sidoo kalena ay ka tahay kalkaaliye waxaan filayaa inaad isweydiin doontaan waa maxay xaruntaas xarunta ayada ma ahan mid kale iyo maaragtay position aad raadinaysaan ee guri dabaq haya maaragtay filo ama ma garanaysaa xarun maaragtay clinical ma ahan xarunta ayada ee hooyadu maaragtay dhakhtaradu ay ka tahay kalkaalisadan ay ka tahay waa naaskeeda xaqiiqatan waxa la sheegay in badan xanuuno badan ee caruurta soo weerara inuu ka difaaco naaska xanuun kasta ee ilmaha soo weeraro waxay kula dagaalantaa mase ma garanaysaa ee koortag ooga dhigtaa naaskeeda caanaha naaska oo ilaa hadda la laayahay wax u dhigma faa'iidadooda ama soo koobo waxtarka ay u leeyihiin ilmaha dhakhaatiir badan oo cilmi baarayaal ayaa waxay isku dayeen inay ogaadaan ama ay soo koobaan muhiimadda uu ciyaalku u leeyahay in faa'iidada ma garanaysaa ay ka helaan naaska ilmaha ilaa haatanna waa lagu guul daraystay oo waa la laayahay si loo soo koobo faa'iidada uu leeyahay naaska waana arrinta kaliya ay ka midaysan yihiin dhammaan dhakhaatiirta adduunka caanaha naaska wax kaga faa'iido badan ilmaha inaysan jirin misana cunuga uusan u baahnayn muddo 1 sano ilaa 2 sano ah naaska kaliya inuu ku noolaan karo isagoon u baahnayn caano kale isagoon u baahnayn biyo kaliya caanahaas naaska uu ka nuugayo ay ku filan yihiin muddada dheer waana sababta rabbi subxaanahu wa ta'ala uu hooyo kasta u faray inay ilmaheeda ay nuujiso 2 sano xawlayn kaamilayn liman araada an yutimma ar-radaa'a haddaba hooyada noocaas ah oo ma garanaysaa ay kaalintaas noogu jirto ee maaragtay ka hortag inoo ah xanuunadii markii aynu yaryarayn ee ma garanaysaa aynu dhalanay oo dhibaato badan aan la soo gudboonaanay ama maaragtay ayna soo qabsatay oo xanuunkan hayaa cid garan kartaa aysan jirin hooyadii soo fahamtay ee soo aragtay misana ma garanaysaa ay nagu soo abaabisay in ma garanaysaa naaskeeda inugu daweyso xaqiiqatan hooyada noocaas wax loo dhigo ma lahan mana la soo koobi karaa ammaanteeda iyo sheekeeda hooyadaas qof kasta waxaan maaragtay halkan aan kala dardaarmayaa hooyo hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kugu simay in ma garanay adigoo qaangaara oo waajibaadkii waalidiinta xilliga aad gudan leed soo gaaray haddii Ilaahay uu ku soo haleeshiyo hooyada waxaan ku dardaarmayaa inaad hooyada qalbigeeda aad ka ilaaliso wax dhibaateeyo misana hadal dhibo aad maaragtay ku tiraado dhagteeda aad maqashiiso waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan kaga rajeynayaa hooyo kasta wanaagsan inuu maaragtay hoygeeda maaragtay ama irsaaqadeeda uu ka dhigo jannatul firdawsa jannatul naciim maantana barnaamijkeena halkaas ayaan kusoo koobaynaa hadduu rabbi raali ka noqdo wuuna noo sii socon doonaa barnaamijkeena imtixaanaha haddii Ilaahay noo ogolaado fadlan haddii aad naga daawanayso facebooka linkiga waxaan kuu soo dhigi doonaa youtube-ka meesha kore ee title-ka uu ku xusan yahay halkaas ayaad ka tixraacaysaa nagu soo biir waxay noo tahay dhiirigelin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh